daawade maxaad u malaynaysaa in aad iska qoomamayn doontid kolka aad saaran tahay sariirta geerida si kale waa maxay shanta wax ee ugu badan ee ay dadku iska qoomameeyaan kolka ay dhimanayaan barnaamijkeenan ayaynu kaga hadli doonaa xog qodobka ku saabsan haddaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkan subscribe saar gabadh lagu magacaabo Bronnie Ware oo dhalatay 1967 kana soo jeeda Australia ayaa muddo 12 sano ah ka shaqeynaysay goobaha lagu daryeelo dadka waaweyn gaar ahaan kuwa dhakhaatiirtu ay ka quusteen ee la sheegay noloshooda in wax ka yar 4 toddobaad ay ka hadhay muddadaas waxay gabadhani xanaanaysay boqolaal qof intii ay shaqadaas wadayna waxa ay dadka si geeriyoonaya weydiin jirtay shanta wax ee ay iska qoomameeyaan saameyntooda muddadii ay jireen dadkan waxa ay badankoodii ka heshay 5 jawaabood oo isku mid ah kuwaas oo ay dadku ku sheegayaan in ay yihiin shanta wax ee ay noloshooda soo sameeyeen balse ay iska cilkaambinayaan sanadkii 2009 ayay gabadhani qortay maqaal ay ugu magac dartay The Top 5 Regrets of the Dying maqaalkii wuu qarxay oo daafaha caalamka ayuu ka dhacay dadyow badanna waa uu soo jiitay sumcaddii ay ka dhaxashay maqaalkaasi waxa uu ku dhiirigeliyay in ay qorto isla buug sita magacii maqaalka waxaana uu buugu soo baxay 2011 ilaa imikana 32 luqadood ayaa lagu turjumay qofka damca in uu buuga akhriyaa waa uu ku caajisayaa maadaama oo ay gabadhu sheekooyin nolosheeda iyo khibradeeda khuseeya ay kaga waramayso balse halkan ayaan si koobnaan badan inoogu soo gudbinayaa nuxurka shanta qodob ee ay dadku iska qoomameeyaan kolka ay dhimanayaan qodobka koobaad waxay iska qoomameeyaan in aanay sidii ay jeclaayeen u soo noolaan ee ay u noolaayeen sidii ay dadka kale la jeclaayeen waxa ay dadkan iska qoomameyn jireen in aanay helin geesinimo ay ku hirgeliyaan nolosha ay jecel yihiin in ay ku noolaadaan wax kasta oo ay damcaan in ay sameeyaanna waxa ay ka cabsan jireen in ay dadku kula yaabaan sidaas ayayna faraha uga qaadi jireen mana aha arrin habboon in uu qofku ka cabsado waxyaabaha ay dadka kale ka aaminsan yihiin qodobka labaad waxay iska qoomameyn jireen in ay dadaal iyo juhdi aad u badan ay ku bixin jireen gudashada shaqadooda iyo xasilinta quutal daruuriga dadkani waxa ay ahaayeen kuwa subax kasta u kalihi jiray qabashada hawlo adag iyo xasilinta masruufka noloshooda tan ay dhab ahaantii ka jeedisay xaaladihii macaana ee nolosha sida barbaarinta ubadka waqti la qaadashadooda ka qaybgalka xafladaha qoyska dalxiiska iyo waxyaabaha kale ee muhiimka nolosha qoyska u ah waa talaabo wanaagsan in uu qofku shaqaysto si uu u sii noolaado balse ma aha in uu ilaawo noloshiisa waxyaabaha macnaha u sameynaya qodobka saddexaad waxay iska qoomameyn jireen in aanay haysan geesinimo ay dareemadooda ku muujiyaan dadka intooda badani waxa ay ka cabsadaan in ay ra'yigooda dhiibtaan iyaga oo in lala yaabo lagu qoslo ama dhibiba ay uga timaado ka xamranaya balse ma oga in ay tani tahay tallaabo kalsooni darro iyo u horseedi karta in ay dhaawacyo nafsi ahi soo gaadhaan kuwaas oo nolosha dhadhanka ka qaadaya qodobka afraad waxay iska qoomameyn jireen in aanay wanaajin xidhiidhadii ay la lahaayeen saaxiibadood gaar ahaana kuwii hore saaxiibada wanaagsani waxa ay bilaan nolosha oo micno iyo dhadhan ayay u sameeyaan waxaana ay dadkan iska qoomameeyaan in aanay xidhiidh wanaagsan la lahayn saaxiibadood qodobka shanaad waxay iska qoomameeyaan in aanay iyagu farxadda samaysan farxaddu waa ujeedooyinka qof kasta waxa uu aroortii u kalahaa shaqo gooni ah balse hadafka ay ka saman yihiin ayaa ah in ay farxad helaan waxayna yaab ah in ay dadka intooda badani aaminsan yihiin wax ka maqani in ay farxadda u keenayaan balse qofku kolka uu geeriyoonayo waxa uu ku baraarugayaa run qadhaadh oo ah farxaddu in ay tahay wax qofku uu keligii samaysan karo iyo in ay tahay wax gudaha qofka ka yimaada sidoo kalena dhakhtar Mareykan ah ayaa in ka badan 1500 oo qof oo gaboobay weydiiyay 15 wax ee ay noloshooda iska qoomameeyaan baaritaankaas kadib 15 qodob ee u soo baxay waxa ka mid ahaa isla 5 qodob ee ay gabadhani iyaduna ogaatay qodobadan oo agteena aan ka weyneyn ayaa haddana nolosha micno u sameyn kara ama baqaayo tiri kara haddaba aynu ka faa'iideysano khibradahan inoo soo koobay